Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ku soo dhawow daawadee barnaamijkeennii maxaad ka fahantay? Xalqadeennan koowaad waxaynu ku soo qaadan doonaa baraaruga dacwadda Soomaaliya, indhakalaqaadkii Islaamiyiinta Soomaaliya. Afgembigii 21 Oktoobar 1969 ee aanu dhiigu ku daadan xukunka dalka Soomaaliyana kula wareegeen ciidamadii uu hogaamiyaha u ahaa Sarreeyegaas Maxamed Siyaad Barre, waxaa la odhan karayay wuxuu kaga duwanaa dowladdii rayadka ahayd ee ka horreysay, isagoo durba ka soo horjeestay diinta iyo dhaqanka dadka oo u badnaa xoolo dhaqato, si niyad ahna u aaminsanaa diinta Islaamka oo ahayd halka keliya ee loo noqdo mar kasta oo uu khilaaf dhexdooda yimaado. 26 Febraayo 1970 kacaanka ayaa laalay dastuurkii dalka u yaalay, isla markaasina 2 Maarch 1970 gebi ahaanba mamnuucay asxaabtii siyaasadeed ee Soomaaliya ka jirtay, kuwaasi oo kor u dhaafayay in ka badan 80 xisbi. Dhaqdhaqaaqyada Islaamiyiintu waxay ka mid noqdeen asxaabtay ridaha loo laabay. Waaga cusub ee beriyey waa ay ku faraxsanaayeen Islaamiyiintu isbeddelka askartu samaysay ay awoodda dalka ku maroorsadeen, waxaanu kacaanku u dhiibay jagooyin sarsare, laakiinse waxay ka soo horjeesteen kolkuu qaaday toobiyaha hanti wadaagga oo aanay Soomaalidu aqoon durugsan u lahayn, wuxuuna la yimid xidhxidhnaansho siyaasadeed iyo mid bulsheedba, iyadoo Soomaalida lagu tilmaamo dad furfuran oo laab xaadhan. Marka dib loo milicsado, bulshada Soomaalidu waxay ahaayeen dhammaantood dad Muslim ah muddo dheerna diinta soo haystay, taasoo ay uga duwanaayeen ummadaha kale ee geeska kula nool. sidaasi si la mid ah ayay culimadu hoggaan iyo horseed ugu ahaayeen markii isticmaarku dalka soo galay. Waxaynu ka xusi karnaa taariikh ahaan halgankii daraawiishta ee uu hogaaminayay Sayid Maxamed Cabdilla Xasan oo ka tirsanaa dariiqada Saalixiyada, ayaa waxaa la odhan karayay inuu salka ku hayay diidmo Soomaalidu gebi ahaanba diideen wax ka soo horjeeda diintooda, sharaftooda, dhaqankooda iyo caadadoodaba, ugana babacdhigeen quwadihii gumaystayaasha oo awood ahaan aad uga itaal roonaa xilligaasi. Wuxuuna halgankaasi socday 1900 iyo ilaa 1921, waxaana marar badan soo shaac baxay wadaaddo Soomaaliyeed oo daacad u ahaa diintooda lana dagaalamayay gumaysiga. Haddaba haddii aynu daawaday intaasi kaga soo gudubno taariikh guud mar ah, waxaynu isla eegi doonaa macnaha salafiyada. Macnaha salafiya waxaa markii ugu horreysay qeexay Imaam Shamsudiin al-Dahabi oo ka mid ahaa culimadii Shaaficiyada. Wuxuu ku dhashay imaamku Dimashq 673 Hijriyada, waxaanu geeriyooday 748 Hijriyada. Wuxuu ku macneeyay salafiyada u noqoshada dhaqankii ay iska lahaayeen saxaabadii rasuulka iyo labadii jiil ee ka dambeeyay. Asalka salafiyada waa in diinta Islaamka laga qaataa kitaabka Qur'aanka ah iyo axaadiista, loona qaataa siday u fahmeen asxaabtii iyo intii wadadooda raacday. Waxa xilliyadii dambe Soomaaliya la odhan karayay waxaa soo nooleeyay fikirkaasi salafiyada Sheekh Nuur Cali Colow oo ahaa wadaad caan ah. haatana daawade bal aynu isla eegno macnaha suufinimada. Suufinimadu waxa ay ka kooban tahay qaybo dariiqooyinka ka mid ah. Waa Islaam haddii aanay la iman waxyaabo cad oo ka hor imanaya shareecada Islaamka. Waxay suufinimadu baahday kolkii alla ka cabsiga dadku daciifay, adduunyo jacaylkuna xogaystay, isla markaasina uu jihaadkii dowladaha Islaamku ku fidin jireen diinta aad u daciifay. Waxay caan ku yihiin xadrada ama digriga, iyadoo qolo waliba cisaynayso inay darajo sare gaarto oo dhanka ruuxiga ah ama awliyanimada. Suufinimadu ma ahan dariiqo gaar ah amaba diin gaar ah amaba se madhab gooni ah, ee waa dariiq uu qofku u marayo sidii uu Ilaahay ugu dhowaan lahaa. Sida suufiyiintu aaminsan yihiin weeye aragtidaasi.
waa la isku khilaafaa ereyga ahlu suufinimada. dadka qaar ayaa ku sheega inay suufinimadu ka soo jeedo saxaabo masjidka nebiga joogtay. ibnu jawsi kitaabkiisa talbiis ibliis wuxuu ku sheegayaa suufiyiintu inay ka soo jeedaan sufa ibnu mara, ninkan oo hooyadii nidar ku gashay inay suri doonto tiirka kabcada marka ay dhasho si uu ugu go'o diinta. kolkaas ayaa loo bixiyey sufi. waxaa kaloo la sheegaa in suufi macno ahaan ay ka soo jeedo erey Giriig ah oo la macno ah falsafadda. halkaasi ayaynu ku joojinaynaa xalqadeennan koowaad daawade. fadlan subscribe star channelka si aad ula socoto xalqadaha dambe iyo falanqaynta aynu ku samayn doono xalqadeennan koowaad oo aynu ku xigsiin doono isla fiidiyowgan.